maalmahan magaaladeena muqdisho waxaa ka batay hadallo oo ah Facebook iyo waxaas caruura dugsi saas ugu yeelay waxba la afduubay waxba la kufsaday markaas dadkii khalkhal lagu abuuray waxyaabahaas oo kale diinteena islaamku ma ogola beledka in la qaso ilaahay wuxuu yiri lam yantahi almunaafiquuna walladina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يعني دتك عبسي جلية أو نبت جلية حما عبورة أو سانا لي دتك خلق كو عبورة كوا سبحان الله يقانا القرآن كو يقانا المرجفون في المدينة كوا مقالة جلجلة وحن كو جلجلة إشاعة دينتنا وحن كو تربيسي هداد وحن مقشو عدي أي خسيسي أما وحكا قبان كرتي ayaa loo geeyaa dadweynaha iyo bulshada wax cabsi ah lagu ma faafiyo oo ilaahay wuxuu leeyahay wayda jaa'am amrun min al-amn aw al-khawf ad'u bih walaw rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum wa la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu yani alaykum wa rahmatuhu yani hadii ay u imaado arin ama nabadgelyo ku saabsan ama cabsi ku saabsan kuwa faafiya ee dadka ku khalkhaliya sidaas inay yeelan ma ahayn ee waxay ahayd rasuulka iyo ulul amriga cidii markaa khusaysa wax ka qabanaysa inay u sheegto si wax loo qabto laakiin in balbala la abuuro oo haksan Allah oo haksan Allah oo haksan Allah oo haksan Allah waxana ardaas ka tarimayso midda damana dhibay keenay midda kale waxaadana dacaayad si aba maxaa laga rabaa dugsi quraan wax lagu faraxumeeyay xagaa lagu keenay koo waxa jira cadow ah oo Soomaalida ahlu quraanka ee quraanka ku dhagan si ay quraanka ugu diraan markay waxba inaga qaadi waayeen يا وحي ربا إنا يسكت دران بلشدي يا معلنك القرآن إنك معلمين تنا دكسيدي نوع دكتا ومعلنك حافظي إلى الدقن ربا تنصنو صدن صنو أيو عروتي أنا كير يكوين يكل أي واحد براي ما نجد كيس كسعودان أنا كالي القرآن دكتا نوغدك ما دهنو معلن اللي يقانا ناس معلن كاسنا معلن علميس كسو النقرايا أما وحكر هذه ما مركب حيامات دعايتها نوعاس وكلا يعني إنا لفافين يعني كواس كرهم يسناي هذه فيسبوك دانس كاسو قرتو دكسيا wax lagu kufsaday ma hubsanaayay dugsiga wax lagu kufsaday ma dheeno commentiga la akhri marka hore maxaa dugsiga loo geeyay ilmaha qof kasta wax isaga dhiibanaysiin dugsiga hal la xiro hatta ma la quraanka ma dhahay hadii zina la sheego waxa la rabaa afar markhaati ah kuwa sheegay qofka zinu sameeyay waxa laga rabaa inay la imaadaan afar markhaati ah haday afar keeni waayaan ayaga la garaacaya marka si loo adkeeyo dadka sumcadooda loo ilaaliyo diinteenu way u jeedaan laakiin ishaacaadkan dadka khalkhalka lagu gelinayo ujeedooyin iyo waxyaabo kale ay si wax dhexbay wadankeena wuxuu iska wada noqday marka meel iska furan cid walba waxay doonto ay iskaga samayso marka waxaasna intii iska daayo qof walba iyo xaafad walba sida arrimaha u hagaajisan lahayd culimadeedu u tashan lahaayeen dadkooda u tashan lahaayeen dugsigooda u warqabi lahaayeen wixii xumaan maalmahan magaaladeena muqdisho waxaa ka batay hadallo oo ah Facebook iyo waxaas caruura dugsi saas ugu yeelay waxba la afduubay waxba la kufsaday markaas dadkii khalkhal lagu abuuray waxyaabahaas oo kale diinteena islaamku ma ogola beledka in la qaso ilaahay wuxuu yiri lam yantahi almunaafiquuna walladina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يعني دتك عبسي جلية أو نبت جلية حما عبورة أو سانا لي دتك خلق كو عبورة كوا سبحان الله يقانا القرآن كو يقانا المرجفون في المدينة كوا مقالة جلجلة وحن كو جلجلة إشاعة دينتنا وحن كو تربيسي هداد وحن مقشو عدي أي خسيسي أما وحكا قبان كرتي ayaa loo geeyaa dadweynaha iyo bulshada wax cabsi ah lagu ma faafiyo oo ilaahay wuxuu leeyahay wayda jaa'am amrun min al-amn aw al-khawf ad'u bih walaw rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum wa la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu yani alaykum wa rahmatuhu yani hadii ay u imaado arin ama nabadgelyo ku saabsan ama cabsi ku saabsan kuwa faafiya ee dadka ku khalkhaliya sidaas inay yeelan ma ahayn ee waxay ahayd rasuulka iyo ulul amriga cidii markaa khusaysa wax ka qabanaysa inay u sheegto si wax loo qabto laakiin in balbala la abuuro oo haksan Allah oo haksan Allah oo haksan Allah oo haksan Allah waxana ardaas ka tarimayso midda damana dhibay keenay midda kale waxaadana dacaayad si aba maxaa laga rabaa dugsi quraan wax lagu faraxumeeyay xagaa lagu keenay koo waxa jira cadow ah
oo Soomaalida ahlu Qur'aanka ah ee Qur'aanka ku dhagan si ay Qur'aanka ugu diraan markay waxba inaga qaadi waayeen yaa waxay rabaan inay isku diraan bulshadii iyo macallinkii Qur'aanka innaga macallimiinteena dugsiyada inoo dhigta waa macallinka xaafadda inala degan 20 sano 30 sano ayuu carruurteena kan yar iyo kan weyn iyo kulli ayuu wax inoo baraayay ma nin jidka iska socdaanaan kaale Qur'aan dadka noogu dhig ma dhahno macallin la yaqaana mees macallinkaasna macallin cilmihiisa ku soo noqonaya ama wax ka raadinaya ma ah marka waxyaalaha dacaayadaha noocaas oo kale ah yani inaan la faafinin yani kuwa iska rumaysanaya adii Facebook haddaad iska soo qorto dugsiga wax lagu kufsaday ma hubsanaayo dugsiga wax lagu kufsaday ma dhino commentiga la akhri marka hore maxaa dugsiga loo geeyay ilmaha qof kasta wax isaga dhiibanaysiin dugsiga hal la xiro hataa ma la quraanka muxuu dhahay haddii zina la sheego waxaa la rabaa 4 markhaati ah kuwa sheegaya qofka zinu sameeyay waxaa laga rabaa inay la imaadaan 4 markhaati ah hadday 4 keeni waayaan ayagaa la garaacaya marka si loo adkeeyo dadka sumcaddooda loo ilaaliyo diinteenu way u jeedaan laakiin ishaacaadkan dadka khalkhalka lagu gelinayo ujeedooyin iyo waxyaabo kale ay si wax dhexbooy wadankeena wuxuu iska wada noqday marka meel iska furan cid walba waxay doonto ay iskaga samayso marka waxaasna intii iska daayo qof walba iyo xaafad walba sida arrimaha u hagaajisan lahayd culimadeedu u tashan lahaayeen dadkooda u tashan lahaayeen dugsigooda u warqabi lahaayeen wixii xumaan cilmigooda jooga garab ha siiyeen dacaayadaha iyo ishaacaadkana waxba inoo tari maayaane yaan dadka lagu khalkhalinin ilaahi subxaana watacaala tawfiiqayna waafajiyo ummaddeena meel ay joogtaba allah ku ammaansado dadka xanuunsan isbitaalada ku jiraan faataxada naga soo codsan qaarkood ilaahi subxaana watacaala ha caafiyo qof walba oo xanuunsan oo ummaddeena meel kasta uu joogo ilaahi ha ku caafiyo ilaahi ha caafiyo ilaahi nabad caama inoo soo dejiyo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammad